kadii cusbad libin jacayl qaybteedii 34 hooyo batuulo oo garab badan ka heshay islaamihii xaafada deganaayeen iyo hablahooda ayaa ku guuleystay in ay sharaxaan gurigii cusbaa ee loo yagyeelay yaasiin iyo falis oo inta ay quraan saaratay ayaa habeenkii xigayna loo guuriyay gurigii loo unkay falis in nolosha kula qaadatay xabiibkeeda yaasiin iyada oo la ciyaarayay hees iyo alalaasna lagu galbiyay farxadna loogu bundhigay reerkii cusbaa hooyo curudkeeda caruus ah waxaa lagu ogaa in aysan waxba la harin falis si kolkoolin leh ayaa toddobaadkii koowaad arooska looga saaray waxaana sida caadada ah la hubiyay shaashkii astaanta u ahaa kana yeelaya in ay tahay inan la qabo waxa gacanteeda ugu saartay hooyo batuulo walow ay rabtay in hooyadeed maryan ay hubiso haddana waxa ay ahayd arrin ay kasii warhayso aysan filanayn inay dhacdo inta ay waxaas oo idil dhacayaan hooyo maryan warka ma hayso meel ay u raadiso mag jirin gabadheeda walow ay jeclaan lahayd in xaalkeeda ay ogaatana haddana waa ka warhaysa in warsame cali iyo wiilkiisa ay go-aan adag ka qaateen falis nolosheeda yaasmiin oo ahayd cidda keliya ee ugu walwal badan reerka oo dhan ayaa maalintii dambe waxay raadisay sureer oo ay saaxiibo isku dhow ahaayeen falis iyadoo aaminsaneen in ay xiriiraan oo ugu yaraan ay soo heli doonto teleefoonkeeda ayaa xaafadeedii ka goobtay waxayna nasiib wanaag heshay iyada oo markaa shaqo ku socota waxaana dhex martay sheekadan sureer maashaa allah maanta maqbiyadii maa xaafadayda timid alla maxaan qalaa yaasmiin sidaas ayaan ku qabaa waad boorso weyn tahay mashaqaa ka timid sureer maya iminkan ku socdaa yaasmiin sidee xilligan sureer shaqo habeen ayaan ku qoranahay yaasmiin waxaan kugu ogaa mchka adiga oo jooga ma isbitaalka ayaa lagu bedelay sureer goorme falis kuma sheegin horta falis ka waran war ma laga helay yaasmiin adigaanba kaa soo wardoonay armad war ka heshay sureer maya wallaahi mar walba ayaan ka fikiraa falis waana wada goysay yaasmiin wallaahi isma lahayn sureer ayay gooynaysay waan ka hurdi la ahay yaa og waxa ay ku sugan tahay sureer khayr un aan u rajayno waa og tahay ninkii qadar ahaa marnaba gurigaas kuma soo dhoweyn doono yaasmiin haa wallaahi aniga markasta waxaan ugu duceeyaa in ay farxad ku noolaato ilaan gurigii laga dhalay waa laga deeriyey sureer reerkii lagu nasto ee lagu nugaada allaha ka yeelo yaasmiin aamiin sureereyaan ku daahin ee soo soco intaas un ayaan kaa soo goobay sureer wax kasta oo aan ka maqlo waan kuu soo sheegi doonaa sidii ayaa la isku raacay oo cid kasta halkii ay u jeeday abaartay yaasmiin iyada oo murugsan ayay ku soo laabatay xaafadda haddana cidna uma sheegin in ay falis baadigoob u gashay ileen waa ogeed in xataa guriga laga mamnuucay in magaceeda lagu sheego muddo bil ayaa kasoo wareegatay tan iyo markii falis ay noqotay reer meel degan waxaad mooda in ay ahayd qof nolosha lamaanaha la qabsatay waxay ku nooleed nolol farxad leh guri u gaar ah ayay kula nooleed rafiiqii nafteeda yaasiin cali waxay ahayd gabar jikadeeda u shidan tahay walow uusan ninkeeda wax shaqo ahayn haddana wax walba noloshooda buuxin jiray yaasiin reerkiisa iyada wax walba loo saaray dukaan xaafada ku yal oo ay raashinka ka qaadan jireen iyo lacagta biilka waxayna ahayd falis qof ku faraxsan waxayna ka gudubtay cabsidii ay qabtay maalintii ay go-aanka ku qaadatay in ay yaasiin la baxsato waxayna si fiican isu fahmeen xaafadii loo aroosay oo ay asxaab badan ku yeelatay yaasmiin marnaba qalbigeeda kama go-in falis oo xilli kasta ayay qalbiga ku haysay waana ay rabtay in ay aragto haddana ma garanaynin meel ay u abaarto sidoo kale hooyo maryan ayaa ahayd qofta kale oo reer warsame cali ka tirsan oo tabaysay falis haddana cid kasta daruurta ayaa gacmaha ka xiraysay oo sida ay doonto wax uma maamuli karin aabe warsame cali iyo wiilkiisa oo ahaa kuwii go-aanka adag
ee fallis lagu gooyo soo jeediyey ayaa iyagana marnaba qalbiyadooda fallis soo gelin oo ay la ahayd in ay dhimatay. waa habeen ka mid ah habeenada ay Yaasiin iyo Mursal ay ku kulmaan. sida caadada ah lamaanahan waxa ay ku kulmaan deerka weyn ee guriga Yaasmiin banaankiisa ku yaala sidii caadada u ahayd halkii ay wada fadhiyeen waxayna ka sheekeynayeen fallis iyo wanaageedii. iyaga oo xaaladaas ku jira ayaa mar kaliya waxa ku soo maray Qadar oo markii ugu horeysay isku arkay ayaa inta uu ku soo dhawaaday oo ku yiri Qadar Yaasmiinay ninkan muxuu yahay warnin yahow maxaad ahayd maxaase ka haysaa halkan. Yaasmiin oo naxdin darteed la tartartay ayaa tiri Yaasmiin abooba wiilkan xaafada ayuu degan yahay. Qadar imaqal wiil yahow in aan isoo raacdo ayaan rabaa ileen halkan kuma hadli karnee. Mursal markiiba waa istaagay oo uu ku yiri Mursal waa ogolahay laakiin mid ayaan kuu sheegayaa marnaba ha ku fikirin in aan ahay nin xun oo Yaasmiin dabin u qoolaya. Qadar isla weyni darteed inta uu fiiriye ayuu ka socday. Yaasmiin oo cabsi qabta ayaa inta ay Mursal shaatiga ka soo qabatay dib u soo celisay oo ku tiri Yaasmiin waa ku baryaa ha raacin oo orod xaafadaada iska aad. Mursal maxaa jira Yaasmiin ma annaga xumaan meesha ku falkinaynay waa maya maxaan uga baqaa kolley nin iyo nin ayaa u hadlaynaa.